ray dawladdii dhexe ay burburtay dadka Soomaaliyeed ee kala irdhoween waxay Boosaaso nasiib u heshay inay marti geliso dad aad u fara badan oo deegaano fara badan oo Soomaaliya ku noolaan jiray sababtaas waxa saldhigeeda ahaa mashaariicdii ugu dambeeyay ee xilligii dawladdaas ay dhacaysay laga hirgeliyay magaalada Boosaaso oo saldhigeedu ahaa jidka isku xira magaalada Garowe iyo Boosaaso dekada Boosaaso korontada magaalada Nakfish intaasoo mashruucu waxay ahaayeen mashruucyadii gabaabsiga ahaa ee dawladdu markay dhacaysay halka laga fuliyay waxaan rabaa si gaar ah inaan uga mahadceliyo dawladdii dhexe ee markaa jirtay gaar ahaan xubnihii deegaanadan ugu jiray oo xusulduub iyo dadaal badan u galay inay mashaariicdaas oo xilligaas cid kasta oo loo sheego halkaas laga fulinayaa ay u arkaysay waxaan suuragal ahayn iyo meel aan dad ku nooleen u dhabar adeegay waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa Professor Juurile waxaan Ilaahay ugu baryayaa inuu caafimaad buuxa siiyo oo ahaa xubintii waqtiga badan ku bixisay inay mashaariicdaas hirgalaan xaqiiqdii haddii aysan jiri lahayn mashaariicdaas waan hubaa dadkii deegaanadan iyo deegaano kale oo Soomaaliya deganaa Boosaaso uma soo qaxeen waxaa sidoo kale Ilaahay mahadiisa dadkii deegaanka loogu yimid ee odayaasha isimadii dhaqanka ganacsatadii iyo bulshadii qaybaha kala duwaneed ee halka deganeed waxaan uga mahadcelinayaa sidii wanaagsanayd ee dadka Soomaaliyeed oo aan kala sooc lahayn oo aan kala haybta ahayn ee u soo dhaweeyeen waxaad ogtihiin in badan oo halka joogan ay ka warqabtaa dadka deegaanada bartamaha Soomaaliya ku nool dadka deegaanada koonfurta Soomaaliya ku nool dadkii waqooyiga ku noolaa intoodii badan ama intoodii ganacsanaysay waxay mararka ka mid ah hooy u ahayd magaalada Boosaaso oo ahayd dekada kaliya oo furan oo adeega bulshada Soomaaliyeed meel kasta ay joogto gaarsiisa runtii dadka reer Boosaaso way ku amaanan yihiin waan uga mahadcelinayaa in ay dulqaadkaas iyo duruufihii adkaa oo dadkii soo maray oo aan ka mid ahaa dadkii u soo qaxay ay dadkaas runtii ay ku soo dhaweeyeen oo wax taariikhda Soomaaliyeed baalkeeda geli doono marna aan la ilaawi doonin dadka Soomaaliyeed marka deegaanada kale dadka u dhashay aad wareysatid waa deegaanka kaliya oo dadka markay yimaadaan ay halka dareemin qalo oo ay dareemin kala qoqob oo ilaa iyo hadda dadkii bariga u soo qaxay oo aan deegaanadan ka tirsanayn xataa deegaanadooda markay nabad noqdeen ay ku noqon waayeen oo goosteen inay halka degaan ammaan badan bay ku mudan yihiin shacabka dadka reer Puntland gaar ahaan Boosaaso oo dadkaas runtii ka dhigtay walaal waxaa markhaanti ah dadkii yimid in la soo dhaweeyay kaliya kuma ay koobanaane waxay qayb ka qaateen muuqaalka iyo magaca iyo sharafta maanta Boosaaso leedahay dhismaheeda qayb weyn bay ka qaateen waxay geliyeen hantidii ay ka shaqaysteen waxay geliyeen hanti deegaano kale ay markii dambe ka keeneen ilaa maanta ay Boosaaso tahay magaalooyinka ugu caansan dalka Soomaaliya dhinaca dhaqaalaha iyo nolosha marxaladahaas kala duwan ay Boosaaso soo martay dadkii gacanta ka geystay oo qaybaha kala duwan ee bulshada ahaa oo ugu muhiimsan yihiin bulshadii ganacsiga maadaama magaalo ganacsi ahayd runtii waxay geliyeen waqti fara badan oo ay adag tahay in Soomaaliya inteeda kaleeto laga helo adeegyada noocaas waxay ahayd magaaladii ugu horeysay oo laga fuliyo telefoon burburkii kadib waxay ku guuleysatay mobiladii ugu horeeyay in halka laga fuliyo waxay ku guuleysatay in xawaaladaha iyo services kale dadku u baahan yihiin la qabto waxay noqotay meel xarun u ah bulsho Soomaaliyeed iyo bulsho badan oo ajnabi ah waxaa halka deganaa dad Carab ah
dad Hindi ah dad Bershiyan ah iyo dad Afrikaan ah oo qaybtood ilaa iyo hadda ay ka shaqeeyaan magaalada oo way degaan ka dhigteen runtii magaaladan waa magaaladii ay ka soo aasaasantay fikirka Puntland maxaa yeelay dadkii indheer garadka reer Puntland degaan kasta Puntland hawa noolaade waxa hooy u noqotay magaalada Boosaaso oo markaas ahayd isha kaliya oo nolol ay ka jirtay runtii dadkii halka isugu yimid waxyaabaha ay xoog saareen waxa kamid ahaa sidii Puntland uu heli lahayd dawlad danaheeda ka shaqeysa intay hayso in ka badan ku kordhisa waxaa nasiib wanaag ahaa guddigii Puntland asaaskeeda hogaaminayay gobolka Bari waxa uu matalay maantana senator Bootaan oo halka fadhiya waxay soo dhaweeyeen shirar badan oo Soomaalidu halku qabsatay waxay soo dhaweeyeen deegaano badan oo markaas dib ka jiray inay halka ka dhigtaan hooy una sameeyaan taakuleen ay dhibaatadii markaa jirtay uga baxaan asaaskii Puntland waxa saldhig u ahaa magaalada Boosaaso oo dhaqaalaha Puntland lagu aasaasay xoogiisa meesha saldhig u ahayd halkahay magaalada Boosaaso Puntland waxay u tahay hooyo ilaa iyo haddana way u tahay oo dhaqaalaha ugu badan ee dawladda Puntland dadkeeda ugu adeegto halka ayaa saldhig u ah magaaladan waa magaalada dadka reer Puntland ay ku midaysan yihiin deegaankeeda ay ku midaysan yihiin wax ka qabadkeeda ay ku midaysan yihiin ka shaqaynta horumarkeeda dadka reer Puntland waa uga mahad celinayaa in ay Boosaaso u doorteen inay noqoto xaruntooda ganacsi iyo xaruntooda ay nolosha ay ka abuuri doonaan waxaad ogtihiin burburkii kadib dalka Soomaaliyeed madaxdii iga horeysay ee halka joogtay waxay xusul doob badan u galeen sidii kaabayaasha dhaqaalaha loo horumarin lahaa mar walbana fikirkoodu wuxuu ku saleysnaa sidii dadka reer Puntland aysan mar dambe aysan ugu dhici lahayn wixii dhibaato ah ee soo gaaray dalka Soomaaliyeedna ay u arkeen inay danteeda ku jirto in degaan walba dadkiisu ay ku noolaadaan iyadoo deegaanada kale ay reebaneen in la tago nidaamka federaalka ee la qaatay wuxuu saldhigiisu ahaa Boosaaso oo 1990kii lagu qiyaaso dadka ku nool inay 1000 qof dhamayn in maanta halka kaliya ay 3,000 oo qof fadhido waxay muujinaysaa horumarka nidaamka federaalka uu soo hoyay waxaan rajaynayaa nidaamkaas federaalka oo Puntland aasaas u ah dhismaheeda in la adkeeyo kaas ayaa midnimo lagu gaari karaa kaas ayaa horumar lagu gaari karaa kaas ayaanan Soomaalidu mar dambe god ugu dhacaynin inay burbur ay ka soo kaban weydo 30 sano uusan ku dhicin haddii meel ay jirato meel baa u fiyoobaanaysa Soomaalidu oo gurmad u fidinaysa laakiin haddii ay Soomaalidu hal magaalo noqoto halkaas magaalo waxa ku dhacaya burbur ka soo kabashadiisana way adag tahay nidaamka federaalka waa nidaam adduunku maanta u wada guurayo oo ay u arkeen inuu yahay nidaamka kaliya oo dhaqaale ahaan iyo bulsho ahaan ummadaha badbaadiya waxaad ogtihiin dadkii ugu dambeeyay oo nidaamkaas cagta saaray waxa kamid ah dalka Kenya oo qaatay nidaam la yiraahdo devolution oo u qaybiyay dawladii dhexe inay dawlad goboleedyo ay yeeshaan deegaanada Soomaalidu degto qofkii tagaa garan kara muddo dhowr sano ka yar ayay nidaamkaas qaateen isbeddelka ku dhacay dadka deegaanka tagay ayaa ka sheekeyn kara horumar weyn bay ku talaabsadeen biyo laga ma heli jirin waxbarashada waxay u soo aadi jireen Nairobi nolol caafimaadka way u soo aadi jireen maanta waxay leeyihiin jaamacado waxay leeyihiin jidad waaweyn waxay leeyihiin garoomo diyaaradeed waxay leeyihiin iskuulo casri ah waxay leeyihiin cusbitaallo nidaamkaas federaalka ah waa kan Puntland iyo Soomaalida inteeda kale u horseedaya inay hesho mashaariic waaweyn oo dadka noloshooda kaba runtii waxaan rabaa inaan halka aan ka iftiimiyo maxay tahay siyaasadda dawladda Puntland aan madaxda ka hay
ee marxaladdan soo socota sida la ogyahay xukuumad kasta oo dhalata waxay leedahay qorshe iyo program ay rabto inay bulshadeedu ugu adeegto qorshaha iyo programka aan u soo bandhignay bulshada Puntland waxa ugu horeeyay oo aan ballan qaadnay inaan la nimaano xukuumad tayaysan oo hufnaan maamul leh waxaan kaloo ballan qaadnay inaan nidaamka dimuqraadiyadda oo nu aragno inuu horumarka siyaasadda kobcin karo aan xoogga saarno waxaan kaloo ahmiyadda saarnay dhinaca amniga iyo nabadgelyada sidii loo horumarin lahaa waxa ugu muhiimsanaa oo saldhig u ahaa waxa aan tiigsanayno marka tayeynta laga tago koboc dhaqaale oo sababa xasilooni siyaasadeed iyo mid maamul muddadii yarayd ee aan joognay waxaad markhaanti ka tihiin dhammaan hay-adaha dawladda shaqaalaheeda iyo ciidankeeda si joogto ayay mushaharka ilaa ay hadda u qaataan waxaan ilaahay ka rajaynaynaa inaan sii wadno oo sii kobcinno waxaad markhaanti ka tihiin in wax badan oo dhinaca hay-adaha maamulkoodu isbeddel muuqdo oo la taaban karo uu cagta saaray waxaad markhaanti ka tihiin garsoorku isbeddel badan inuu ka jiro oo ay daliil u noqotay kiiska caasha iyo sida broseeska loo mariyey iyo sida xorriyadda leh ee loo qaaday iyo sida uu maray dhammaan hay-adaha kala sarreeya ee garsoorka waxaad markhaanti ka tihiin in ciidamada ammaanka habeen iyo maalin ay u soo jeedaan sidii nabad aad u heli lahaydeen reer Boosaaso waxay markhaanti ka yihiin maalintii dawladdan xukunka la wareegtay oo ay dhici karin in qof uu habeenkii 7 ama 8 fiidnimo oo bannaanka ku hoydo maanta nolosha ka jirta idinkaa markhaanti ka ah waxaana ka markhaanti kacaya kulankan caawa aan joogno oo aad meelo fogfog ka timaadeen waxaad ogtihiin muddo 7 bilood ka yar dawladdu inay ku guulaysatay inay soo magacaawday guddigii doorashooyinka oo ay ka muuqato inay naga go'an tahay in doorasho xor ah oo qof iyo cod ah deegaanada dawladaha hoose iyo dawladda Puntland dadkeeda ay ku dooran doonaan waxa markhaanti ka tihiin inta taa la gaarayo inta qof iyo cod la gaarayo iyadoo hannaankii hore lagu socdo doorashooyinkii quruxda badnaa ee ka dhacay deegaanada Puntland ee waqtigoodu dhamaystay oo ugu muhiimsanaayeen degmada Baran Ufayn Ceelbu iyo Xarf Buraan baa oran lahaa cafan waxaan aad ugu mahad celinayaa dadka reer Buraan iyo Baran oo gabdho gudoomiye ku xigeen u doortay waana runtii waxyaabaha ay dawladdan ku taamaysay inay doorka haweenku ay qayb ka qaataan waxaa dawladdan wasiiradeeda iyo cid badan oo mas'uuliyiin ah ku badan dadka dhalinta yar oo aqoon muddo badan lagu soo tiiriyo tacabeelay inay dadkooda u shaqeeyaan waxaan u ogolaanay inay fursad u helaan ay ku soo bandhigaan awoodooda si ay bulshadooda ugu adeegaan siyaasadda ku aadan kobaca dhaqaalaha iyo sidii dadkan uu uga kaaftoomi lahaa ku tiirsanaanta hay-adaha deeqda bixiya dawladdan waxay u gashay dadaal dheer inay dadkeeda la wadaagto hannaan ka duwan hannaankii hore ee lagu horumarin karo dhaqaalaha laguna joogtayn karo inuu dalku xasilooni dhaqaale helo waxaan u jeesannay dhinaca maalgashiga iyo inaan ugu baaqno ganacsatada Soomaaliyeed ee reer Puntland iyo kuwa deegaanada kaleetaba oo markii aan talada nimid ganacsatada reer Puntland ay u kala tartamaysay sidii u maalgashan lahayd deegaanada kaleeto ee Kenya iyo Tanzania iyo Zambia iyo Imaaraadka iyo Cumaan oo ganacsatadii faraha badneed ee halka dhaqaalaha ka helay duruufo amni iyo kaabayaal dhaqaale darteed la'aanteed ku u geysay inay dalka ka hijroodaan oo deegaano kaleeto ay hantidooda geliyaan waxyaabaha caqabada ah oo dawladaha Puntland isaga dambeeyay mar walba ku taami jireen waxa weeye dhinaca infrastructure-ka
oo la sahlay dadaal dheer iyo madax badan oo iska kala dambeysay in garoonka Boosaaso iyo Garowe uu hirgalo laakiin waxaad ogtihiin annagoo laba garoon oo labada garoon ugu caalamisan Soomaaliya ku yaala haysana haddana dadkeennu waxay u aadi jireen intay dhulka maraan si ay dibadaha u aadaan magaalada Hargeysa ka bixi jireen waxaad markhaanti ka tihiin in dhawaan ay furtay diyaaradda Ethiopian Airlines safarkii duulimaadyada ugu horeeyay deegaanka Puntland oo ay ka bilowday Garowe waxaan rajaynaynaa dhawaan inay Boosaaso ka bilaabayso haddii Ilaahay waxyaabaha markii aan nimidaan xoogga saarnay waxaa ka mid ah inaan dabagal ku sameeyno mashaariicdii hore u hirgashay baadi goobno mashaariicda cusub ee halbowlaha u ah inuu dhaqaaluhu hodmo waxaan xoogga saarnay inaan ka daba tagno oo ogaano sababaha hore iyo kuwii dambe aan goobjoogka u ahayn ee dekedda Boosaaso hakadka ku galay sababta u ahaa runtii hakadkaas galay sababo badan oo fasamo iyo sababo amniba wuu lahaa laakiin waxaan waqti badan ku bixinay waqti yarba kadibba inaan shirkaddii dekedda Boosaaso inay dhisaysay inaan kala hadalno dilkii ka dhacay magaalada Boosaaso oo ujeedadiisu ahaa in lagu wiiqo in magaalada Boosaaso aysan ka hirgelin maalgashi waxaad ogtihiin xilligii magaalada Boosaaso ee magaalada ahayd dekedda Boosaaso ee keligeed ahayd deegaanka nabdoon keligiisu ahaa Soomaaliya waa ka sii baxaysaa waxaa soo baxaya tartanno dekedeed waxaa aad u furmay oo u kabacay oo u horumaray dekedda Berbera waxaa dib u habeyn iyo horumar ku socda dekedda Muqdisho waxaa furantay dekedda Kismaayo waxaa la haabanayaa dekeda kale in la dhiso haddaba maxaa la gudboon dadka reer Puntland iyo Boosaaso waxay u baahan tahay tartan ka duwan tartankii hore inay la timaado dhaqaaluhu meel kasta uu jiro waa tartan cid wax iska kaasiinaysa ma jirto haddaan reer Puntland mas'uuliyiinteeda ahayn wasiirada kaabayaasha dhaqaalaha iyo ay khusayso iyo aniguba waxaan safarro ku kala bixinay dalalka Imaaraadka Shiinaha Ethiopia Kenya intaasba waxa ugu muhiimsan socdaalada ugu muhiimsan waxay ahayd oo aaminsannahay waxyaabaha hadda dalka ka jira oo ugu horreysay amni darrada inay qayb ka qaadatay dhaqaale xumada soo foor saartay Puntland oo sida kaliya looga bixi karana aan u aragnay in la helo in la kobciyo dhaqaalaha iyo ganacsiga sababta ugu weyn ay tahay in la horumariyo kaabayaasha dhaqaalaha ee aan leenahay waxa Ilaahay mahadiisa oo aan rabin inaan ka hordhac badan sameeyo indhihiinana aad ku arki doontaan in dekedda Boosaaso dhismaheedu uu dhawaan bilaaban doono isbeddelkii aan filaynay la arki doono magaalada Boosaaso quruxdii iyo wanaaggii iyo ahmiyaddii ay lahayd dib u soo noqon doonto waxaan ku dadaalnay garoonka Boosaaso oo aan ahayn garoon keliya inuu passenger ama dadka ay ka dhoofaan oo soo degaan laakiin ahmiyadda loo aasaasay ama sida loo qorsheeyay loo qaabeeyay saldhigiisu yahay inuu noqdo garoon waxna ka dhoofaan waxna soo degaan diyaaradaha aad ku culculus ee kaargooga qaadan ay yimaadaan sida loo dhisay labada garoon ee kan Boosaaso iyo kan Garowe way u kala dhisaan garaysan yihiin laakiin wax dhoofintii loogu talagalay si ay u hesho Boosaaso caqabadaha yaryaroo ka dhiman inaan buuxino ayaan ku talagalnay waxaad ogtihiin garoonkan Boosaaso wuxuu ku bilowday lacag aad u yar oo dawladda Soomaaliyeed loo hayay oo 5 milyan ah ayaa waxa ay madaxdii markaa joogto waqti badan ku gelisay in wuxuu laga bilaabo waxaad ogtihiin shirkaddii dhisaysa oo shirkad siinaysa oo weli dalka joogta oo dalkan quruxdiisa iyo fursadihiisa markii aragtay goosatay inay dalka sii joogto waxa ay ku dartay lacag ka badan 9 milyan haddaysan ka badnayn si ay u dhamaystirto inta hadda ay dhamaysay oo ah fayska koowaad ee suuragalka ah inay diyaarada ku soo degaan waxaa Soomaaliyeed oo qorshaheeda ku jiran u gelinaysay inay hadhow noqoto garoon ay u isticmaasho marka ay rabto dalkan iyo deegaankan inay ka shaqeysato inta kaliya kaafi ma noqon waxaan aad u raadinay shirkado kale oo maal gashta oo waxyaabaha ka dhiman oo saldhigiisu yahay 1 kiiloomitir iyo 200
oo ka dhiman si diyaaradaha xawliga iyo xoogga weyn ay u degaan ay ula miqdaan garoomada casriga ee caalamiga ah si loo helo waxaan waqti badan gelinay in garoonka Boosaaso uu noqdo cabirkiisu 3 kiiloomitir iyo 200 ama 600 waxa ilaahay mahadiisa inay naga aqbaleen in shirkad imaaraadka laga leeyahay ay maalgeliso ku darto inta ka dhiman dhamaystirto waxyaabaha aasaasiga ah oo terminal cusub laakiin aasaaska uu yahay inay ku darto inta ka dhiman runwayga ah wax walba uu u baahan yahay si uu u noqdo garoon caalami ah ay ka qabato muddo ka yar 5 sano gudaheed iyadoo oo bilaabi doonto sanadkan inta uusan dhamaan ilaahay idinkiisa waxa kale oo Boosaaso runtii caqabad ku ah oo cid walbana og tahay maadaama ay tahay magaalo xeebeed kulul dhinaca korontada oo runtii hadda aan nalalkeeda ifsanayno laakiin aad og tihiin dadka reer Boosaaso culayska iyo dhibka ay ku hayso inuu halkii kiiloowaad marna $1 ku dhawaa marna waxaan macna lahayn ka yar yahay oo adag tahay xataa mar waxado inay shitaan iska daaysiiyeen si arinta loo helo waxaan waqti badan gelinay in la helo jiha ka duwan jihada maalgashiga ee garoonka maxaa yeelay korontooyinku waa maalgelin aad u fara badan oo waqti dheer ay suuragal tahay xataa inay soo celiso ama ay soo celin weydo waxa nasiib u helnay inay ogolaadaanba inay nala arkaan waxaan ahayn iska daa moogta in la arko sanduuqa horumarinta iyo maalgelinta Abu Dhabi ama Imaaraadka waa sanduuqa dadka yaqaan baa garanaya dhaqaalaha marka la yiraahdo adduunka ugu weyn ma aha Aasiya ma aha Carab xataa kaydka Mareykanka ayuu ka weyn yahay sanduuqaas waa sanduuqii Soomaaliya caawinaad badan siiyay oo kamid ahaa warshadii Mareerey iyo mashaariic badan oo Soomaaliya ay fulisay sanduuqaas wuxuu naga aqbalay inuu magaalada Boosaaso yimaado oo soo diro khabiir arko baahideena wuxuu naga ballanqaad mabda'i ah marka uu arko xaaladiisa oo shuruudahana laga rabo aan buuxino inuu wax nagala qabto korontada Boosaaso ballanqaadkaasna waa haysanaa waana ballanqaad dawladeed waxaan rajaynaynaa inuu fuli doono waxaad ogtihiin xoolihii oo muddo xanimnaa waxaan waqti badan gelinay suuqyada imaaraadka ka xanimnaa dabcan xoolaheenu ma xanimnayn oo Abuud waxay tagi jireen Cumaan iyo Yemen iyo meelihii kale oo markaas fursado ka jiraan marmarka qaarkood xilliyada mawsimka ah Sacuudiga xilligan way u dhoofeen laakiin suuq kasta oo ku soo kordha waliba suuqyada ku dhow waa faa'iido gaar ah ku soo kordhay runtii xoolaha waqti badan baan gelinay waxaad ogtihiin in si kama dambaysa suuqa imaaraadka loogu furay xoolaha ka dhoofaya magaalada Boosaaso dabcan wax kasta oo la qabanayo shuruudo ayaa buuxinaya waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed iyo dadka reer Boosaaso iyo ganacsatadooda inaan u sheego inay ka waantoobaan Soomaalidu waxay tiraahdaa bartiyaqaan bari uma korodho haddaad ku fakaraysaan sidii waa loo ganacsan jiray in loo ganacsanayo hadda adduunkii waa sii socdaa waana tagay markii Dubai dadkan ay ka ganacsan jireen deegaanadana ka horumarsanaa deegaanadana ka dhaqaale badnaa maanta waad garan kartaan dadku sidoo yahay dawladuhu waxay ka shaqeeyaan dadkooda caafimaadkiisa amnigiisa iyo horumarkiisa iyo faraxiisa marka haddaadan adiga shuruudaha iyo standardka adduunka wax loo dhoofiyo aadan kor u qaadin hadda suuq baa laga xiray kuma aan ducoon kareyno waxaan u baahannahay shacab iyo dawladba anagu iskaashanayna inuu suuqa Boosaaso u muuqdo suuq caalami ah oo la tartami kara suuqyada kale caalamka ka jira si taa aan u helno waxaana laga rabaa inaan ku guuleysano shuruucda iyo standardka adduunka looga dhaqmo inaan ku dhaqanno waxaan rabnaa in dekadaheena iyo garoomadeena iyo hay'adaheena dawliga ah ay u dhaqmaan sida caalamku u dhaqmo waxaan nasiib darro ah dad fara badan
oo Soomaaliyeed oo reer Puntland marka ay deegaanada iyo dawladaha kala tagaan inay sharciga iyo nidaamka kala dambeynta ilaaliyaan markay dalkooda iyo dadkooda u yimaadaanna lagu kari waayo sharciga fuliyo waa nasiib darro waxaan u baahannahay dadkeennu in uu u hoggaansamo shuruucda dalka ilaaliyo nidaamka dawladnimadeena ay ku jirayso dawladnimadeena markuu jiritaankeedaan ilaalno ayaa dadkeena jiritaankiisa iyo taariikhdiisa ay jiri doontaa haddii jiritaanka dawladnimadeena aan ilaalin weyno oo wixii 1990kii nagu dhacay ay mar labaad nagu dhacaan waxaan mutaysanaynaa wixii aan caalamka ka noqonay iyo sidaan caalamka u ekaanay muuqaalkeena iyo sidii iyo si ka xun baan noqonaynaa waxaa hadda isu soo kabaya deegaanada qaarkood in la yiraahdo nabadgelyo ka jirta waxaad ogtihiin mararka qaarkood dawladaha qaarkood dadkooda waxay yiraahdaan Somaliland waa tagi kartaa laakiin Soomaaliya inteeda kale ma tagi kartaa dadkeeda ka dhigay inay u muuqato dal nabdoon oo amni ah dawladoodana kala shaqeeyay waxaan u baahannahay dadka reer Puntland dadka nabadgelyada wiiqaya inaysan marti gelin inaysan walaal ka dhigan in ay meel uga soo wada jeestaan sidii nabadeena aan u horumarsanahay waxaan ku kalsoonahay dadka reer Puntland oo taariikhiyan lagu yaqaano dad nabadda jecel lagu yaqaano dad wada noolaanshaha jecel lagu yaqaan dad dawladnimada mar walba taageera habaca nagu dhacay muddooyinkii ugu dambeeyay inaan iska qaadno oo u muuqano wixii uu dadka Soomaaliyeed iyo caalamku naga fili jiray oo dad sharaf iyo karaamo iyo dawladnimada ku faan inaan noqono oo dal xasuloon oo deegaanada kale markii ay dadkooda ku noolaan waayaan ay yimaadaan inaan noqono taas ayaa waxay noqonaysaa furaha koowaad ee dawladdan ay xoogga saari doonto si taa loo helo muddadii yareed ay dawladdan jirtay waxay ku tallaabsatay inay xarumaha ciidamada oo runtii aad u dayacnaa ay wax ka qabato waxay dib u habeyn hordhaca ku samaysay xerada kontri afraad oo saldhig u ah daraawiishta aasaaska u ah difaaca Puntland waxay hirgelisay dugsiyo tababar oo ku kala yaala Boocame Abqaale Xurgoble Qardho iyo Baran dugsiyadaas laba kamid ah waa dhamaadeen ciidamadii ugu horeeyay tababarkana qayb kamid ah shalay iyo maanta ayay galayeen waxaan rajaynaynaa inta kaleeto inay galaan iyaga ciidamada daraawiishta ciidamada booliiska ciidamada kale ee BMBF iyo BSF oo runtii kaalin weyn ka qaatay in Boosaaso nabad loogu nooloodo iyo shacabka reer Puntland markay ay iskaashadaan waxaan rajaynayaa magaalooyinka Puntland inaan lagu arki doonin cid nabadiid ah xasiloonida aan rabin ummadana mustaqbalkeeda duulaanku ah waxaan u baahannahay si wada jir ah inaan arrimaha uga shaqeyno waxaan rabnaa dawladdan inay isbarbar wado tayeynta dalka dhinaca maamulka kobcinta dhaqaalaha sugidda amniga iyo inay albaabada u furto maalgashiga caalamiga ah waxaad ogeyd bishan 15 ilaa 17 bishii la soo dhaafay waxa magaalada ku qabanay Garowe shir loogu magac daray shirka maalgashiga Puntland oo kii ugu horeeyay oo noociisa ah ee Soomaaliya laga qabtaa inta taariikhdeeda jirtay Soomaaliya horena loogama qaban jirin oo dawlad Shuuci ahayd kadibna kay ugu horeeyay oo noocaas oo mustawahaas leebu ahaa runtii sharaf bay u tahay Puntland waxayna wax badan ka bedeshay dad fara badan oo caalamka ah waxay ku soo dhiirigelisay in ay mashaariic xaqiiqi ah la saxiixdaan dadka Puntland waxa laga fidiyay Puntland sumcad xun oo mararka qaarkood dad iyaga u dhashay ay qayb ka qaadanayaan wafdigii ganacsatada ahaa iyo dawladda isugu jiray ee maalin dhaweeyay dalka yimid markay soo degayeen aad ayay u baqayeen madaxdii soo dhaweynaysa ka warqabta maalba gudahood iyagoo aad u faraxsan oo magaalada dhinac walba uga maraya ayay yiraahdeen wixii nolol sheegay yeelan doonaa kulamo gaar ah oo furan oo dood furan yeelan doonta hadii ilaahay idmo waxaan rabnaa wax walba oo dadka ku jira inaan ka shaafino
waxaan rabnaa dadka dantooda inaan u sheegno dantiinna inaan ka shaqaynaa noo doonateen waxaana ballan qaadaynaa inaan dantiinna ka shaqayno sida uu dastuurka iyo xeerarka puntland ayna farayaan kalsooni badan baa waxaan ku qabaa dadka reer puntland wanaagga in ay yihiin kuwa u hiiliya waa dhici kartaa dadku hadda Facebook bay ku xirmeenoo waxyaabo aan jirin laakiin waxaas boqolkiiba 95 ama ka badan dadka reer puntland inayna qabin kalsooni badan baan ku qabaa waxaan rabaa inaan inii sheego inay dawladdaani ay ka shaqayn doonto oo hadafyadeeda ka mid ah inay dadkeeda u horseeddo xasilooni inay door ka qaadato dalka Soomaaliya sidoo nabadiisa iyo kala dambeyntiisa soo ceyshan lahaa dawladda federaalka waxaa saldhig u ahaa puntland waxaad ogtihiin oo taariikhda ku suntan inay muddo badan xukuumadda federaalka ah ee aasaaskeedii iyo xooggeedii puntland ka baxay miisaaniyaddeeda ahayd miisaaniyad puntland laga kabaayay ilaa ay haddana waxay diyaar u tahay inay puntland gacan ka geysato sidii dawlad federaal oo sax ah u dhismi lahayd waxaad ogtihiin markii doorashadu dhacdayba waxaan isugu yeernay dhammaan dadka Soomaaliyeed ee madaxda Soomaaliya ah meel kasta ay joogaan hadday ahaan lahaayeen dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka ah iyo hadday ahaan lahaayeen golayaasha dawladda federaalka ah iyo hadday ahaan lahaayeen xubnihii madaxdii iyo sharafta lahayd ee dalkan muddooyin kala duwan u soo shaqeysay intoodaba waxaad ogtihiin 26 January waxay ku kulmeen magaalada Garowe waxaa ka dhacay isu soo bax taariikhi ah oo hortiis aan uga dhicin Soomaaliya waxaa runtii uu u noqday dariiq in dadka Soomaaliyeed ee danahooda ka shaqeeyaan oo ka wada hadlaan waxaa ka soo baxay halkaas in lagu ballamo shir in bisha saddexaad dib la isugu yimaado oo khilaafkii dawladaha federaalka dhexdooda jiray lagu turxaan bixiyo waxaad ogtihiin xukuumaddan cusub ee federaalka markay dhalatayba aragtiyo cusub oo ay dhici karto dad badan inay u riyaaqaan dad badan oo Soomaaliyeed ay u arkayeen inay carqalad ku noqon karto geedi socodka siyaasadeed in halkaas khilaafaad uu ku jiray haddaan puntland nahay sidii caadada ahayd waxaan fidinay gogol nabadeed waxaan ku talagalnay isfaham waaga jira iyo wada hadal iyo soo dhaweyn inaan ka qayb qaadano waxaan aad ugu boorinay madaxda dalka qaybaheeda kala duwan in si xigmad ah aragtiyaha kala duwan lagu dhameeyo nabadgelyada laga wada shaqeeyo dalka tala wadaag laga ahaado dadka loo soo bandhigo danaha saxda ah puntland ay diyaar u tahay inay kaalinteeda qaadato shirkii 2 May ka furmay magaalada Garowe oo madaxda dalka isugu timid falanqayn dheer nasiib darro ma aysan noqon in lagu wada jaan qaado waxaa saldhig u ahaa habkii dawladda federaalku ay u shaqayn lahayd puntland waxay aaminsan tahay inay tahay xubin aasaasi ah dawladda federaalka sida dastuurku dhigayo dawladdu waa in ay ka mid noqotaa dawladda federaalka dawladda kaliya oo dastuuriyan ilaa iyo hadda xubin rasmi ah ka ah oo aan ku meel gaar ahay waa puntland kaligeed maxaa yeelay puntland markii federaalku aasaasmayay way jirtay waxbay ka dhistay dastuurkay ku dhigan tahay sida ay u shaqaynayso xubnaha kale ee aasaasmay ilaa iyo hadda kama aysan bixin nasiib darro sidii la doonayana loogama shaqeyn waxaan rajaynaynaa in arrimahaasi ay noqon doonaan arrimo wax badan tara waxaad ogtihiin maalmihii la soo dhaafay waxaa shalay maanta waxaa ka furmay magaalada Muqdisho shir la yiraahdo shirka Somali Partnership Forum la yiraahdo oo ay ku kulmaan madasha isbahaysiga Soomaaliya iyo caalamka oo looga tashado marxaladda Soomaaliya marayso iyo sidii horumarkeeda looga shaqayn lahaa dawladda puntland shirkaas kama aysan qayb galin waxaan rabaa inaan dadweynaha reer puntland halka kala wadaago sababaha kalifay inay puntland ka qayb gali weyn
maadaama Puntland ay ahayd hooyadii federaalka maadaama ay Puntland ay ahayd xubin aasaasi u ah midnimada Soomaaliya iyo federaaleynta iyada iyo xubnaha kale ee dawladuhuna ay arintaa ka sameeyeen waxaan aad uga xunnahay shirka noocaas inta la eg in Puntland aan laga talagelin in Puntland baraha bulshada ay ka aragtay ajandaha shirka iyo sidoo u dhigayahay inay Puntland ay ka aragtay waxa la yiraahdo communique ama wixii ka soo bixi lahaa shirka oo diyaarsan waxaan ka xunnahay markii aan hubsanay inay arrimahaas sidaas u jiraan oo aan tala ku lahayn oo aan waxa ka soo baxay aan ra'yi ku lahayn oo Puntland baahiyaheeda aan la weydiinayn oo idinkuba waa arki kartaan la yiraahday waxaad ku leedihiin 5 daqiiqo oo dadka Carabiga yaqaan la yiraahdo tacliiq ama remarks qodbad nin akhriyay ayaa 5 daqiiqo idinkuna waxa leedihiin inaad wax comments ka bixisaan ama ka hadashaan intaas inay noqotay qiimihii Puntland laga dhigo aad baan uga xumaaday runtiina wax Puntland ay qaadan karto ma aha bulshada caalamka oo dhan si cad bay ugu cadaysay inaysan arintaas raali ka ahayn waxa inta dheer inay dawladda federaalku oo ahay dawlad la wada dhistay ay tiraahdo aniga ayaa noqonaya qofka shahaadada certificate-ka inaad dawlad tahay ama madaxweyne tahay aan bixinaya waa wax dastuur ka soo horjeedo waxaad ogtihiin waxa ka dhacay Jubbaland doorashada ka dhacday process-keedu la wada arkiyay doorashadeeda loo wada jeeday waxa ay dawladda federaalku diiday in ay nidaamkaas aqoonsato shirkan hadda dhacaya wuxuu dib u dhacay muddo sanad ka badan October-tii hore inuu dhacahay waxa dib loogu dhigay doorashadii koonfur galbeed oo markaas la rabay inay sida maanta u tahay loo sameeyo waxa haddana ay ahayd inay dhacdo July waxa dib loogu dhigay doorashadii Jubbaland inay ahayd sidaan inay u dhacdo wuxuu ku soo aaday waqti xasaasiya waxaan runtii saaxiibaday iyo madaxdayda dawladda federaalka ah oo runtii dad aad aan isu naqaano oo saaxiibo dhownahay aragtiyahan aan ku kala duwanahay marar badan aan u sheegay in ay haboonaan lahayd in wada hadal muuqda oo furan la geliyo dalka Soomaaliya waxaan aad u dareemayaa dad fara badan oo dadka madaxda meesha ku wada hadlayaan aan goobjoog ka ahayn in wixii la rabo loo sheegay aqbalaan dawladda Puntland waxay diyaar u tahay wada hadal furan oo shaashada laga daawanayo sida doorashooyinka hadda looga daawado TV-yada waxaan rabnaa wada hadal furan oo doodeenna aan si cad u sheegi doono dadku si ay u ogaadaan cidda khaldan iyo cidda saxsan waxaan ku baaqaynaa in la ilaaliyo midnimada Soomaaliyeed waxaan ku boorinaynaa dalka Soomaaliyeed inuu horumarkiisa laga wada shaqeeyo waxay Puntland diyaar u tahay inay kaalin ka qaadato sidii dalkani uu uga bixi lahaa habacsanaanta jirta waxaad ogtihiin mashaariicda hadda Puntland burburkii kadib dhacday waa garoonka Boosaaso iyo garoonka Garowe iyo jaamacadda Maakhir wax mashaariic waaweyn oo magac dawladeed noogu yimaado intuba waxay ahaayeen intii dalku ku meel gaar ku jiray markuu dalka ku meel gaarka ka baxay balaayiinta dollar ee la sheegay xamar gashay oo anigu wasiirkeeda qorsheynta aan ka ahaan jiray hal cirbad Puntland ugu imaan hal mashruuc ugu imaan waxay kaloo Puntland noqotay dalka kaliya ama deegaanka kaliya ee mashruuc dawladdu leedahay iyo dadkeedu ay fuliyaan oo Soomaaliya ka jira waana wadada ceel daahir iyo ceergaabo isku xiri doonta diilaahay oo ogtihiin ilmaha yar ee iskuulka dhigta xataa inay qayb ka qaateen waxa xigi doona wuxuu caalamka ka baxay nidaamkii shuuciga ahaa iyo nidaamyadii la dhihi jiray dalka hal la siiyo jid ha loo dhiso dekad ha loo dhiso mashaariicdaas way dhamaatay waxaad ogtihiin waxa socda waa mashaariic maalgashi dekada Berbera waa la maalgeliyay garoonka Berbera waa la maalgeliyay dekada Muqdisho waa maalgelin oo shirkad baa haysa garoonka Muqdisho shirkad baa maamusha maalgelinteeda inkastoo ka xumay terminal yar kaliya dhistay oo jidkiisa runway-ga ay kordhin Puntland waxay tartan ugu jirtaa maalgelinta caalamka inay hesho
waxaan inigu codsanayaa anugu waxaan heli karay intaasay noqdeen ninkii kaloo maalgelin hayana waxaan rabaa inuu Puntland u soo bandhigo u keeno dowladda Puntland wax allaale iyo cid kasta oo rabta dalkan inay maalgeliso albaabadeeda u furtay sharcigii maalgelinta wax ka bedeshay waxay diyaar u tahay dalkan dadka geeska Afrika iyo dadka caalamka ee danaynaya inay ka manaafacaadaan waxaan kula dardaarmayaa dadka reer Puntland inaysan noqon dadka reer miyiga maamaada ku maamahan dhuugu geedahana ma cuno geelanu kama daaqo dad barwaaqada iska dul fadhiya inaysan noqon waxaan u baahanahay barwaaqada aan dul haysanno inaan annaguna ka manaafacaasado ciddii ka manaafacaadsanayso oo aan wax ka helaynana ay nala manaafacaadsato Puntland waxay ogolaatay in deegaanadeeda la soo dego waxay ogolaatay dadkeedu inay ka shaqaystaan waxaad ogtihiin dukaamadii magaalada ku yaalla waad ogtihiin dadka walaalaheenna ee koonfur galbeed ka yimid baa xooggoodii maal gashaday soo saas maaha yaa marka taasi waa maalgelinaha kale dadka ka hadlaaya qof kasta oo maal gashanaya dalka in la soo dhaweeyaan raba xuquuqdiisana la ilaaliyo hantidiisana la xifdiyo waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay waqtiga faraha badan ee fadhideen waxa aad rabtaan waxaan jeclahay inaad marar kaleeto aan kala bogan doono waxaan dhammaanteen isugu dardaarmeynaa inaan nabadgelyada ilaashanno horumarka ka shaqayno amniga dhowranno dadkeennana isku duubnidiisa iyo midnimadiisa aan ka shaqayno dadka waxaasan ka hadlayana aan runtii qadarinno oo qiimayno qofkii markaas khaldanna aan soo hanuunino oo wax u sheegno waxaan rajaynayaa inta badan dadkan inay danahooda sidii hore ugu ilaashadeen u ilaashan doonaan horumar fiican baa ii muuqda mid baan inii sheegayaa qof walba wuxuu yaqaano ilaaliyaaye aniga shirkad qalin iguma xadayso ganacsadaan ahay taa ogaada taasaan ii ballan qaadayaa heshiis aan galay khalad kama imaan doona haddii ilaahaydna aad baad u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu